جاي سر جاي قاعد توش قاعد توش قاعد تقيد قاعد تقيد قاعد تقيد الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم waxaan sameeynaa ardayda barnaamijka la beenoo imaanaysa marka sideena idinka u fadhiya u taagan arday u fadhiista si aan u dhageysano barnaamijka ardada waxaan u yeelanaa haatan waxaan u wixii walaalka Sharmaak Yaasi Cali oo noo akhrin doona taariikh kooban oo ku saabsan degmada Baargaal si fiican loo dhageysto بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka soo jeedinayaa taariikh kooban oo ku saabsan degmada Baargaal waxaana rabaa inaan isdul taago halka ay dhacdo ama ay ku taal iyo ilaha dhaqaalaha ay bulshadu ku tiirsan tahay kow Baargaal taariikh ahaan waxaa lagu qiyaasaa in ay jirto in ku dhow 200 sano waxayna soo martay heerar kala duwan dhan waxbarasho dhaqaale ilbaxnimo dheer dhacdooyinkaas waxaa ka mid ah gumaystihii inuu isku dayo Baargaal inuu qabsado balse dagaal uu kala kulmay bulshadii ku nooleed waqtiga raggii dagaalkaas gumaysta laayay saraakiisha waxaa laga xusi karaa Maxamed Xuseen labo halka ay ku taalamay dhacdo Baargaal waxay ku taalaa waqooyi bari Soomaaliya Baargaal waa magaalo xeebeed ku taala badweynta Hindiya jihada waqooyi Raas Casayr ama Raasiya kala bara labada badood badda Cas iyo badweynta Hindiya jihada galbeed waxaa ka xiga buuraleyda silsilada Goolis dhanka bari waa badweynta Hindiya saddex ilaha dhaqaale ay bulshada Baargaal ku tiirsan tahay kow kulumaysiga labo xijiga saddex beeraha afar xoolaha nool sanadkii ugu dambeeyay Baargaal waxaa saameysay koboc dhaqaale goobaha waxbarashada caafimaadka inkastoo ay jiraan baahiyo sida jaamacad wadooyinka laamiga ah iyo isbitaal guud hadda waxaa la bilaabay in si isku tashi loo dhiso isbitaal guud ay degmadu leedahay oo la rabo in laga qayb qaato dhismihiisa waxaana lagu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed iyo Puntland gaar ahaan reer Baargaal ganacsatadooda siyaasigooda iyo waxgaadkooda inay ka qayb qaataan dhisidda isbitaalka